marka ugu horeysa waxaan saxaafadda aan rabnaa maanta inaan u soo bandhigno in maanta oo bishu tahay bishii February aanu shir ku wada galay annaga bacmisharka iyo guddiga ballaarnayd ee ka shaqeynaysay qorshaha dejinta ama qiimo u yeelista shilinka Soomaaliland iyo ganacsato ballaaran oo reer Soomaaliland oo kuwa dalka waxna soo dejiyay waxna dhoofiya kulankaas oo ahaa kulan isfaham iyo xog waraysi iyo sidii qorshe guud iyo nidaam jawi wada shaqeynado wanaagsan oo isfahama looga yeelan lahaa hawshan ama qorshahan la rabo in qiimo loogu yeero shilinka Soomaaliland run ahaantii marka ugu horeysa wasiir ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee u soo ajiibeen kulankan iyo sida gacanta buuxda ay nooga siiyeen waxaan guddi ahaan aan xaqiijinayaa oo u sheegayaa shacbiga reer Soomaaliland bacmisharku muddadii hawshan aynu wadnay inay si qurux badan oo wanaagsan oo qurux badan inay noola shaqeeyeen waxaa jira ganacsato fara badan oo lacagtooda shilinkii Soomaaliland ee faraha badneed ee bangiga u yaalay aanu xayirnay oo aanu joojinay anagoo ka duulina qorshahan si wanaagsan oo la jeclaan bay noogu raaceen oo ay nagala shaqeeyeen si qurux badan oo wanaagsan baan muddadii hawsha ku jiray wada shaqeynay maantana kulanka iyagu wuxuu daaraa sidii aanu qorshe hawleed wanaagsan oo qurux badan oo isfaham leh oo salka ku haya sidii shilinka Soomaaliland loo wada isticmaal lahaa bulshada Soomaaliland ay noqon lahayd mid shilinkeeda aaminta iyo hadday tahay ganacsataba iyo hadday tahay dawladba aanu guud ahaan uga wada shaqeyn lahayn wuxuu ahaa kulan wanaagsan oo isfaham ku dhamaaday kulan wanaagsan oo la isu aqal celiyay kulan wanaagsan oo wax la isugu tusaaleeyay guud ahaan waxaan oran karaa jawigii muddadii saacadaha aanu ku wada jiray shirka waxaanu qaadanay dareen isku mid ah oo aanu shacbigana u sheegayno inuu dareenkaasi yahay mid aan u sheegayno in aanu dhammaantayo heegan u nahay inaanu shilinkii Soomaaliland qiimo u yeelno oo aan u wada guntanno haddaanu nahay ganacsatada haddaanu nahay mas'uuliyiinta haddaanu nahay qaranka oo dhan sidaa awgeed waxaanu leenahay maanta laga bilaabo waxaanu nahay dad isku dhinac ah awalba isku dhinac waanu ahayn hase yeeshee waxa wada fulinta qorshaha hawleed iyo isfahamka joogtada la yeelanayo ayuunbaa laga ballamay waxaa gunta loo dhigay qorshe hawleed la doonayo in muddada soo socda lagu wada shaqeeyo oo ah kulan joogto ah iyo magaranaysaa xog waraysi joogto ah iyo hadba xaaladdu halkay marayso in laga wada tashado xukuumad ahaanna aad iyo aad baan ula dhacsanahay qaabka macaamil iyo nidaamka iminka ganacsada wax soo dejisay iyo shilinka sida ay shilinkii Soomaaliland suuqa magaranaysaa suuqii xorta loogu soo celiyay iyo sida way jiraan wali dhaliilo ku jira hawshii dawladdu soo saartay oo ah dhinaca magaranaysaa suuqa madow laakiin waa wax ka bixi doona muddooyinka dhow ee soo socda uu qalali doona shilinka Soomaaliland annaga xukuumad ahaan waxaanu hakinay isticmaalkii shilinka Soomaaliland oo waxaanu yareynay supply-gii waxa weeye waxaanu saaraa mushaharkii running cost oo kaliya waxa ay daaran tahay inaanu aan qiimo u yeelo shilinka Soomaaliland ganacsataduna guud ahaan waxay nala qaateen qorshahaas si qurux badanna way nooga shaqeeyeen muddadii imika ay nala shaqeeyeen waan uga mahadcelinaa sidii wanaagsan ay noola shaqeeyeen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ama santahay Faisal Fifo laakiin waxaan u malaynayaa xogta dhabta ah suuqa inaan ahayn u jira suuqa madow laakiin waa 7500 ma galabta la kala siisanaya marka doolarka qofka doonaya waxana waa qorshe ma hawl yara hawsha lagula dagaalamaya waxa laga soo kaxeeyay 9000 halkay maraysaana imika waa 7500 muddaduna waa muddo yar oo kooban waxaanu aaminsanahay marka loo arko muddada kooban hawshan wadnay inaanu dadaal badan galnay inay nala shaqeeyeen bacmisharku in shacbiga reer Soomaaliland ay si wada jir arrintan uga shaqeeyeen إن شاء الله عبد الله كريم أنت يرى فرق عادي من ودحية إمك سوق مذو وأركي شو إمك بقولال كنا ضربي بعمل شركة إمك هذا كسا هيجلين سوق ويكسو سميز يكو عشورين هنا على رجع قارب بس لا بقولال كنا ضرور صار يصرفته وكليه مركا gradual وحنا وحوي وصعنا يسيس لو إمك وحمر 7000 قربت كي وجود ما 7000 500 سوق مذو ولا شيء إننا وحنا نوقي الري قعنتك هو 6800 إلى 7000 aynu gacanta hore gacanta damanayo maxaa u dhaxeeya waa 500 halkeenu ka soo kaxaynay oo from 9000 muddo biriyarkaynu wadnayna waa wax yar oo gaaban waxaan ku leeyahay waynu ka baxaynaa waxa la doonayaa saxaafaddu inaanay buunbuunin warka beenta imika waxa tir waa 9000 galabta warkii ugu dambeeyay baan ku sheegaya iyo sarifka halku marayay marka waxaan jeclahay
anigoo aan idin dhaliilayn waan idinku kalsoonahay inaad tihiin rag jecel wanaagga iyo shacbiga reer Somaliland iyo dadka danyarta inuu hiliyaan laakiin waxa fiican had iyo jeer inuu ka duulo xaqiiqada iyo magarasha dhabta jirta waxaan ku leeyahay xaqiiqadu waa taan ku sheegayo dadaalkuna waan wadnaa waxa dhiman intiini